ninkii Sacuudiyaanka ah ee u shaqaynaysay ayaa kufsaday. Kadib markii ay uur u qaadayna, uurkii ayuu ku dafiray kadibna waxa uu ku dilay xeebta. Xeebta ayuu ku dilay inta uu gaadhi ku qaatay. Waa dhacdo argagax leh oo ka dhacday boqortooyada Sacuudi Arabiya. Qisada gabadhan oo Soomaali ah oo ay ka sheekaynayso saaxiibteed goobjoog ahayd, Faadumo oo ah gabadha saaxiibadeed ah ee silica iyo saxariirta martay, ee ilmihii iyadaba la dilay. Tan iyo markii uu ogaaday uurka silica iyo saxariir ayuu mariyay gabadhaasi. Waad ooyi marka aad dhegaysato qisadan. Run ahaantii haddii aad calool jilicsan tahay, waad ooye iska dhaaf muuqaalkan. Waan ooyay tan iyo intii ay Faadumo oo ah gabadha marxuumadda ah saaxiibteed ee carabtu nolosha ku socodsiisay ay ka sheekaynaysay. Haddaba qisada gabadhan oo saaxiibteed ka sheekaynayso ayaan idin haynaa. Ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u guda gelin, haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, muuqaalkana like garee, siina share garee qisadan si gabdhaha Soomaalidu ay ugu waana qaataan. Kusoo dhawaada barnaamijka. Tan iyo intii aan dhegaysanayay qisadan, waan la ooyay. Waa qiso uur ku taalla iyo silica. Faadumo oo ah gabadha saaxiibteed ayaa ka sheekaynaysa. Waxay tiri waa gabadh Soomaali ah oo nin Sacuudiyaan ah oo ay gurigiisa uga shaqaynaysay uu kufsaday kadibna nolosha uu ku ciqaabay. Muddo ayuu kufsanayay bay tiri. Waxa uu ka ahaa wakiil, kamay tagi karayn, lacag ayuu xitaa ku lahaa. Si kasta ayuu xidhxidhay, waddo kasta ay kaga baxsato ayuu ka soo xidhay, ilaa ay ugu dambayn guri uu ku xidhay muddo bilaana gurigaasi ugu jirtay. Uur ayuu u yeelay intuu kufsaday. Ugu dambayntiina nafta ayuu dhaafiyey oo waxa uu ku dilay xeebta intuu gaari ku qaaday. Qisadan oo guud ahaanba dadkii dhagaysanayay ay la ooyeen. Faadumo ah gabadha saaxiibteed 21 daqiiqo oo ay ka sheekaynaysay. Qof kasta dareenkiisa ayaa isbedelay. Haddaba waa tan Faadumo oo xataa la ooyday silica iyo saxariirta iyo sida xun ee ninkan carabka Sacuudiyaanka ah uu u galay saaxiibadeed. Qisada bilow ilaa dhammaad waa tan waxaa inoo haysa Faadumo. Daawada sii share garee. waxay ahayd waxaan joogay wadankii nolosheedu waxay ku tiirsanayd hooyadayo. hooya noo shaqayn jirtay, na biilin jirtay, nolol iska qurux badan baan ku jirnay. 2012 markay ahayd ayaa hooyo xaqi u yimi. ilaa uu naxariisto. aabbu markaa balwad buu leeyahayo saa nooma daneeyo. hadduu maalintuu doonana waxbuu noo keenaa, maalintuu doonana waxba nooma keeno. dabeedna markaan muddo sidii ku jiray, noloshii adkaatay, inamadayadii kululaadeen, dhib badan gurigii, waxaan go'aansaday inaan tahriibo oo Sacuudiga aanu tahriibo. waayo ma tegi karayo Liibiya, ma tegi karayo oo ma haysto wax cid iga soo bixinaysa, cid naxaysa, cid yar xamaysa. gabadhan saaxiibanahay baan markaa ku yiri halkaasaan rabaa inaan u tahriibo, waxaan rabaa inaad dhiraacdid. waxay igu tiri ma tahriibayna, xafiisyaa jira la iska diiwaan geliyo inaad shaqo halkaa ka rabto, markaa fiisa loo inoo soo diray, asaasaan ku tagayna. xafiisyadii baan iska diiwaan gelinay, muddaan sugaynay, fiisayaal baa naloo soo diray xaafad. hal xaafad ayaa aniga inantii na wada qaadatay. marka fiisa wadanka lagugu keenana aad bay u dhib badan tahay. dabeedna waxaa dhacday markaa fiisihii laygu keenay, nin baa naga soo dejiyey airportka, immigrationkan soo marnay, soo gelitaankii baa naloo ku dhuftay, guri baa nala geliyay. guriga markaa kadinka waxaa taagan inaan Ethiopiana waa shimaana. guriga markii albaabka nala ka geliyey ee aanu saa guriga u galnay, buu yidhi baasaboorada igu soo wareejiya. baasaboorradii buu naga qaaday. baasaboorradii markuu naga qaaday, aniga inantu markaa luqad garan mayno, carabi ma naqaano, waxaanu ka wada hadalnaa farahay nagala hadlaan, farahay waxay naga tustusaan. muddo markaanu joognay xogaa luqadii intii dee naloo sheegay waxaan qaban, waxaan soo qabaday waanu baranay. dabeedna markaa sidii ay ahayd, islaantu way shaqaysaa, odayguna wuu shaqeeya, caruurtana iskuul baa la geeya.
waxaana lagu yiri shuruudana lagu xidhay waxna lagu yiri talaagada ma furi kartaan hadaad furtaana waa hadaad qof guriga joogo wax uga soo saaraysa cuntada aad karisaan markaan anagu cunteyno intee yar soo hadhabaad cunaysaa ha talaagada ma taaban kartaan bana lagu yiri cuntada aad karisaan intee yar soo hadha ayaad cunaysaa hase ahaatee mushaharkayga wayna siin jireen iidaha oo kale wayna siin jireen xaqadhiid xagga cuntada uun markaan anagu karino uun ay maqan yihiin uun baanu si fiican u cuni jirnay inta kale waxaanu samayn jirnay aan iska gaajoona gaajadii baaba sad iyo buro ahayde odaygii guriga joogay ayaa naftii ilaahay noo keenay madbaha unbuu soo gelay aduu sii jeeda unbuu dhabku siinayaa barida ama meel kalu kaa taabanaya guriga lahaa waa odaygii guriga lahaa hayaa bariya taabta gurigiisa la gala ma carab baa markaa waa carab waa sacuudiyaan inankii odaygii markuu naftii ilaahay noo keenay oo khaatiyaan naga dhigay oo marba garabka kaa taaba marba halkan taaba mar lindhanaan marba meel oo khaatiyaan ka taaganahay odaygii ayaa waxa dhacday maalintii dambe iyo shaqo u kalahayn isagii baa soo noqday qolkii jiifka aanu soo hagaajinay ayuu galay qolkiibuu isku soo dhex wada daaday cadaradii tuwaleedka kasoo daadiyey sariirtii go-i ka qaaday kabadhkii dharkii kasoo saaray kadibna inantii saaxiibaday ayuu ku yiri kaalay waa maxay qolka sidan u eg qolka soo hagaaji yaa waxoodii ay dadka ku caayi jireen qolkii baan bay tagtay mise qolkii waxaad moodaa inaan weligiiba la hagaajin suu isku dhex yaalo qolkii hadday gabadhii hagaajinaysay xoogaa ku jirto ninkii ka dabagalay gabadhii halkiibuu tacadi ugu geystay uu xidha qolkii qaniyo mucjisaa baa dhacday aad iyo aad inaa lillahi wa inaa raajicuun naagtii waxaa intaa dheer inuu na dilayo oo suuna la dhacayo oo birna la dhacayo oo jirkayga waxay imanaysaa gabadhii isagoo jirkayga dhaawacyo ku yaala markay tiraahdo maxaa dhacay wuxuu odhanayaa ninkan Etoobiyaanka ee halkaa degan waashimaankan ka kari waaye naagahani hoosta kaga jira luqadaan isku difaacno oo niyada ku nidhaahno ninkaaga nafsi noo keenayo waashimaan ma garanayno waanu fahmaynaa laakiin celiskii aad buu noogu yiri waxaanu muddo dhibaatadii ku jirno oonu muddo silicii ku jirno inantii uur bay yeelatay carabkii uur yeelatay inantii tabcaana oo daarada saa u dhex wareegaysa ayay islaantii aragtay markaasay tiri naa waa maxay waxaani markaasuu ku yiri waa ninkan waa shimaanka ah soo kumaan odhan jirin ninkaasi khaatiyaan kala taaganta baan kala taaganahay deetana markaasay iska aamusto iyadiina sii cayda iska aamustay silicii baanu ku jirnay markaa gabadhii 7 bilood marayso adigu ilaa 8 bilood marayso 9kii waxba baanay uga hadhsanay bay tiri waan xidhanahay kabaha waa aniga saaxiibaday ayay tiri saaxiibaday aan baxsano meesha nolol inooma taalo waad aragtaa tacadiga laynoo geysanayo dilka dhibaatada gaajada wiilkan kadinka taagan intaynu barino aynu nidhaahno dhibaatadaasaan haysatay walaal nacaawi wiilkii baanu tagnay waxaanu ku nidhi walaal nacaawi dhibtaasaan haysata tacadigaasuu noo geystay jirkayga nabarada ku yaala ilaahay baa yaabkuu keenaya markaasuu yiri waayahay waan idin caawinayaa laakiin waa inaad hadhow waa laydin soo qabanaya kulleyba waa laydin soo qabanaya marka laydin soo qabto waa inaad tiraahdaan suuliguu ku jiray markaan baxaynay haye baan ku nidho halkiibuu na sii daay airboodka naga soo qaadiyo gurigan saan usoo galnay weli kamaanu bixin jiha aanu u soconno wadadaan u soconno ma gurigii bay nagu celin ma boolis bayna geyn ma meel kale na geyn wadadii baanu iska qaadnay wadadii haddaanu soconno oon in cabaara soconaynay baa waxa naga horyimi gaadhiga waxaa saaran 2 nin oo askara wuuna dhaafay haddana way istaageen dib bay usoo noqdeen askartii wayna istaajiyeen 2 nin askarta mid ka mid ah ayaa maalin guriga noogu yimi markaasaanu biyo iyo sharaab usoo dhigno midkaayabuu wejigeeda arkay oo una garanaya
una gartay inaanu gabdhihii gurigii joogeynahay hadaad socotaan buu yiri waxaan ku nidhi nin baasaa noo soo galay tacadigaasuu noo geystay dhibaatadaasuu noo geystay waanu kasoo cararnay ninka magacii hebel baa la dhahaa haa ma hebel baa soo kora anaa saldhigna geynaya gaadhigii baanu kornay ninka kor umabaanaan eegin inuu isagii yahay maanu garanay gaadhigii baanu raacnay suu noo sii waday gurigii waa shimaankii markaanu aragnay ayaanu garanay gurigii inuu nagu soo celiyey ninkii markaa lacag buu soo saaray sacuudiyaanka ahaa lacag buu soo saaray muxuudiin uma hal mar muxuudiin iyo loof ninkii lacag buu soo saaray soo diray inta idin sheekeynaysa dadka idin sheekeynaya maalin kasta gift iyo dhiirigelin buu soo diray hal mar muxuudiin iyo loof soo diray u mahad celiya thank you muxuudiin ku soco ninkii lacag buu soo saaray lacag fara badan ayuu soo saaro nimankii siiyay buu yiri naagahani naagtan uur kale waa la qabay deedna waxay samaysay Google Drive waxayna la samaysay wiilkan waa shimaanka ah marka aniga ajar ku raadsanayo oo xuduudkii baan ku oogaya waan arjamayaa lacagtan idinku qaato iska socda anagu waan qaylanayna waan ooyeynaa nimankii waxaan leenahay nooga tegina intii yaraad carabigaan baranay Soomaali waxaan soo isku dhex dhigaynaa nimankan inta lacagtii qaatayna dheheen is ilaaliyaan hadhow raad ku soo gelinaba iska baxeen gaadhi buu nagu soo qaaday maca waa shimaankii waxayagiiba gaadhigii markuu nagu soo qaaday xoogaana sii waday ayuu dib noo soo celiyey markuu dib noo soo celiyey markaa gacmaha way iga xidheen indhahana way iga xidheen masarkiibuu saa intuu igu soo qabtay waa shimaankii ku yiri oraa ma rabtaa inaan ku daayo wad adigu nabad gashid naagtan jiidoo dejiyo guriga geli kiiba ay soo jiiday gurigu igu soo tuuray waa shimaankii iyo gabadhii uurka lahayd ee saaxiibaday iyo ninkii baa dib isku raacay gaadhigii ku kaxeeyey wuxuu geeyey xeebta markuu geeyey gabadhii uu farxumeeyey mar labaad deedna uu dilay kow buu kaga siiyey waa riyal qisadaasi sacuudiga waxay ka dhacday 2016 bilowgiisi العربة وهنتي نقدر وهنا صدرنا ما كان نقع أصلاً شاشة قراء عربت إلهي إنكارك وهنتي نقدر إلهي أمنا حرست عربي مركزي إنا صومالي إنه كنا عربي نقولش الله نعبي يا مركز صبحنا هاي دهنا wax kala soo qoro walaalo inaga taay shaashada inaga xuslaan TikTok la inaga xidhan deedna waxa dhacday inankii halkiiba gabadhii ku dilay gabadhii markuu dilay guriga ku soo noqday naagtiisii wuxuu ku yiri way baxsatay askartii baa heshay oo dad meesha xeebtu saa isaga dhigay meedkeedii una kufsaday una dilay waa la helay booliskii baa qaaday gabadha baaritaan baa lagu sameeyey farihiisii baa laga helay waxaana laga helay dheecaankiisii deedna waxaa lagu soo qoray joornaalada waxaana kaloo la ogaaday gabadha inay lahayd sharci wadanka kusoo gashay mas-uulkii baa la raadiyay markaa qofkii ka mas-uulka ahaa isagii baa guriga loogu yimi waxaa la yidhi gabadha heblo la yidhaahdo so adigu mas-uulka maad ahayn haa buu yiri meeday nin baa guursadayoo ninkeedii bay aadi waxaa la yiri ninkeedu yuu ahaa kan waashimaanka ii abaa guursaday marna uu kala hadlo wuxuu yiri kan waashimaanka abaa faraxumeeyo way baxsatay kii baa la xidhay waashimaanka ahaa kii Itoobiyaanka ah markii la xidhay ee muddo xidhnaa ee isagii farihiisii la baadhay dheecaankiisii dheecaanka intan laga helay ay isku mid noqon waayeen wala soo daayay markaa runtuu sheegay wuxuu yiri isagaa dilay gabadha uurkana isaga u yeelatay isagaa kaxay anigana wuxuu yiri haddaad sheegto waan ku raacinaya anigu halkii baan ku jiraa tacadigiina wuu igu socdaa deetana odaygii sidii baa loogu yimi waa la kaxeeyey waa la xidhay عيل وينا سومالنا markaas isku haysata anaga caraba ole dadkeena waa dhinteen anigina waa la kaxeeyey aniguna markii la kaxeeyey waan sheegay inuu tacadiga noo geystay gabadha uu geystay isagu dilay markuu kaxeeyey iigu dambeysay anigana intaasoo dhibaato uu ii geeyey
farihiisii baa la baadhay iyo dheecaankiisii waxaa la helay ilmaha inuu isagu dhalay inantan qofka kufsaday isaga yahay waxaanu tacadiya geystay isaga yahay ninkii 2016 bishii 6 ayaa waxaa lagu xukumay dil oo lagu fuliyay anigiina waxaan codsaday markaa in waddankaygii laygu celiyo bishii 6 markii isaga lagu fuliyay isla bishii 8 2016 baa waddanka laygu soo celiyay ilaa maanta waxaan la noolahay xanuunkii ninkaas uu noo soo geystay iyo gabadhii saaxiibada sida silcale oo uu dilay markaan meydkeedii soo arkay لا لا أنا راجعون يا intaasi waxay leedahay tacadiga iyo mid ka badan ayaa ku haysta Soomaalida markay wadankooda ka tagaan waliba gaar ahaan markay wadan Carbeed joogaan بين ما حتاس in iska kaadilo in wax alaala wixii doono laga sameyn karo aan hadli karayn laga awood weeyahay isugu kaatigayo cidina ku rumaysanayn dhibaato badan الله بالله غير الله يا gabadhaasi walow aanay wadanka waxba ku ahayn haddana iyadoo alxamdulillah cadaalad u heshay ninkiina waa lagu fuliyay sharciga waa lagu fuliyay aniguna waddankaygii baan hadda kusoo noqdon joogaa walow weli dhaawacyadii aanay qalbigayga niyadeyda ka go'in inta qisadaas soo gudbisay ha loo duceeyo inuu ilaahay qalbiga u dhayo